haddii aad tahay arday iminka kasoo qalinjibiyey dugsiga sare islamarkaana raba inuu u qalin bedesho heer jaamacadeed muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 3 qodob oo ay tahay in aad sii fahanto 3 qodob xoogaa iska yar fiican tahay in aad sii ogaato ama aad wax ka yar fahanto qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa qodob iska yar fanaya iyo waxyaabo isku dhow oo dadku ay isku qaldaan badanaa laga yaabo inaad jaamacadan ku aragto qodobka labaad wuxuu noqon doonaa maadaama jaamacadaha dalkeena ka jira ay yihiin jaamacado waxbarashadooda aad ay u liidato qaabka aad wax isaga bari karto shahaadana aad u heli karto cilmina aad u heli karto iyo qodobka saddexaad ugu dambeeyo oo aan kaga hadli doono waxa aad baranayso sida aad ku dooran lahayd anoo ku saleyn doona culuumta kala duwan ee kombiyuutarka maadaama janalkan badanaa aan kaga hadlo waxyaabo badan ku saabsan kombiyuutarka السلام عليكم صاحبيال كسو دوادا مقال كله هدي aad xiisaynayso barashada computer science-ka kusoo biir madashan oo ah madalan kusoo gudbiyo waxyaabo badan ku saabsan computer science-ka hadii aan lahayn casharo theory practical talooyin iyo tusaalayaal iyo barnaamijyo caadi ah soo kale hadii aad garanayso arday imka raba inuu jaamacad ku biiro muuqaalkan u sii share garee oo la wadaag okay haddaan si toos ah u bilaabo qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay waxyaabo badan dadka isku qaldaan tusaale ahaan marka aad rabto inaad jaamacad gasho xafiiska registrarka marka aad joogto albaabka ugu horeeya jaamacadda laga galaa waxaad dareemi doontaa in qofka meesha fadhiya uu yahay qof aan kala garanaynin jaamacadda wax lagu dhigayo ma computer science ba ma IT ba ma software engineer ba yani maba yaqaanaba wax laga yaabaa in backgroundkiisa ama waxyaabihii uu soo bartay computer science IT aan ahayn wixii computer ku saabsan oo dhanna uu wada yaqaano IT wixii doonaan bahaadaan sidoo kale wax laga yaabaa xilliyada imtixaanka oo kale marka semesterka koowaad imtixaankiisa ama semester marka imtixaankiisa aad gashaan in marka aad tagto xafiiska imtixaanaadka gabadha fadhida xafiiska imtixaanka inay kugu tiraahdo horta ma IT baadeed adoo marka software engineer ama waxyaabo kale computer ku saabsan baranayo inaad iska ka tiraahdo ma IT baad barataa yani marka dadku ma fahansana wixii oo waxa weeyaan qalqal badan ka jira waxa laga yaabaa marar qaar IT oo kaliya ma aha caafimaadka oo kale qofka hadii uu maryaha caafimaadka iyo gloves uu xiran yahay dadka arkaan waxay oran doonaan wuxuu bartaa caafimaad hadii uu laboratory baranayo iyo haduu nurse yahay iyo xataa haduu dental yahay waxa la iska oran doonaa qofkan wuxuu bartaa caafimaadka dad badan xataa waxaad arkaysaa marar qaar jaamacadaha dhigta isla markaana aan aqoonin wax ay baranayaan iyo majorkooda wuxuu yahay qodobkaasi markaa wax noqon doona qodob aad arki doonto in badan oo aad la yaabi doonto okay qodobka labaad oo ah qodobka ugu xasaasisan jaamacadaheena sidaan wada ognahay waxbarashadooda aad ay u liidataa sababtoo ah jaamacadaha dalka waxay aad u daneeyaan fiiga ardayga ay ka qaadanayaan si markaa fiigaasi u helaan ardayda shuruudo adag kuma xiraan shuruudahana way ka khafiifiyaan xataa jaamacadaha qaar ardayga marka uu dhaco imtixaanka waa la baasiyaa si jaamacadaasi u hesho sumcad wanaagsan oo ardaydana ay ku sheekaystaan jaamacad hiblaayo ardaydeeda maba dhacaan shuruudaheedana way iska fudud yihiin kadibna arday badan ee u hesho waa xaqiiqo jirta oo uu garan karo qofkii soo maray jaamacadaha qaar imka wax laga yaabaa imkan ku leeyahay ardayda dhacday xataa way baasiyaan marar qaar jaamacadaha in aad la yaaban tahay laakiin waa xaqiiqo jirta xataa marka imtixaanaadka la galayo waxa dhacda in haddii xiisada imtixaanka marka aad galayso ay tahay xiisad iska minor ah waxa laga yaabaa in macallimiintu ku yiraahdaan xiisadan minor ha iska qasha haddaad doontaan okay hadaba qodobkaas markaa sidee ugu gudbi kartaa qodobkaas waxaad ugu gudbi kartaa inaad samayso self study maadaama caalamka maanta waqtigan aan noolnahay uu yahay waqtiga tiknoolajiyada ee ka wada dhigtay tuulo kaliya caalamka oo dhan oo Google-ka iyo YouTube-ka wax walba aad ka helayso wax walba aad ka baran karto in maxaydaas barto iyo ma sida wax isku baro in aad barato ama sida wax loo baro in aad barato soo kana bedelka isticmaal leed Instagram Facebook iyo TikTok in aad ku bedesho YouTube iyo Google waayo cilmiga oo dhan wuxuu ku jiraa 100% wax horan kara wuxuu ku jiraa YouTube iyo Google qodobka kaliya marka aad ugu badbaadi karto qodobka marka anu markaan ku leeyahay jaamacadaha waxay yihiin badanaa macnaheedu ma aha jaamacada gelin laakiin jaamacadu way fiican tahay inaad gasho oo aad shahaado ka qaadato sababtoo ah shirkadaha qaar ayaa ardayda wax ku xiraan shahaado ma sidataa shahaado jaamacadeed ma sidataa weliba shirkadahaasi og yihiin in ardayda jaamacadaha waxba aan lagu dhigin sababtoo ah ardayda jaamacadaha ka soo baxdo dhan shirkadahaasi u tagaan dadna shirkadaha markay imtixaan ka qaadaan oo interview la yeeshaan badanaa waxay ogaadaan in ardayda aanay waxba aqoon marka iyagoo yaqaana ayay haddana ay door bidaan in ay ardayga muxuu ahaay uu sito shahaado jaamacadeed inkastoo shahaadooyinka localka ay ka jecel yihiin shahaadooyinka maxay dibadda qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa sida aad u dooranayso waxa aad rabto inaad barato anigu shakhsi ahaan sida aaminsanahay oo hadda ka hor aan ku sheegay qof walba waxa wanaagsan inuu barto waxyaabaha uu jecel yahay xasiloonida ku dareemo akhrintooda baaristooda waqti ku bixintooda intaba xasiloonida ku dareemo isla markaana mustaqbalka anfici doona waayo marka waxa aad niyad u hayso waxaad baran kartaa in badan ay waqti ku bixin kartaa wad baari kartaa xasiloonida ku dareemaysaa marka maadaama ardayda imika ka soo qalinjibisay dugsiyada sare ee jaamacadaha galaysa badankooda aan hubo
in maadada ay dooran doonaan ay tahay ama fakalka ay dooran doonaan uu yahay IT ama computer science-ka qodobkan marka ugu dambeeya waxaan kugula wadaagi doonaa sida waxa aad dooran lahayd iyo sida aad u dooran lahayd ardayda iminka form 4 ka dhameysay su'aalaha ugu badan ay soo weydiiyaan waxa kamid ah jaamacadda ma waxaan qaataa cyber security waxaan qaataa software engineer mise computer science talada kooban marka waxay noqonaysaa haddii aad ku wacan tahay ama aad jeceshahay codingka iyo programming waxaad qaadataa software engineering waxaad ku baran doontaa programming languageska iyo web development-ga artificial intelligence-ga iyo wax walba codingka hoos yimaada sidoo kale haddii aad ku fiican tahay ama aad jeceshahay hacking-ka cyber security-ga iyo ethical hacking iyo waxyaabaha waxaad qaadataa cyber security waxaan lagaaga bilaabi doonaa basic networking-ka cyber security-gana ilaa 3 sano ugu badnaan noqdo ayaa laga yaabaa laakiin anigu waxaan sameyn lahaa ama aan sameeyay waxaan bartay computer science-ka computer science-ka uu ka yara bilaaban yahay tusaale ahaan computer networking-ka oo ah albaabka laga galo cyber security iyo hacking iyo waxyaabaha aad wax yar ka baranaysaa sidoo kale waxaad wax yar ka baranaysaa computer programming-ka oo ah albaabka laga galo coding-ka iyo programming-ta iyo waxa sidoo kale waxaad baranaysaa graphic design-ka iyo graphic motion-ka marka uu ka yara bilaaban yahay 3 sano ilaa 4 sano noqdo ayaa laga yaabaa marka aad dhameysana waxaad mastertada ka diyaarin kartaa ama software engineer ayaa qaadan kartaa ama waxaad qaadan kartaa cyber security muuqaalkan like saar si uu arday badan u sii gaaro sidoo kale saaxiibayaal muuqaaladeeda hoos u dhacaya ku yimi baryahan waxaan ka codsanayaa markaa inaad share taabataan dhammaantiin mahadsanidin oo wasiirka teknolojiyadda idin leh kulanti dambe oo xiiso leh